Somaliland sakalogu tagayo nabada haligina siyo no society nabada haligina siyo no society nabada Somaliland sakalogu tagayo nabada haligina siyo no society nabada haligina siyo no society nabada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا مركلة برنامجكيني هذا نوكلة أينو سوقي من شرني قرواقصو oo alaba aad ka daawataan shaashada telefishinka qaranka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkeena oo aynu alaba kaga hadalno arrimaha bulshada iyo arrimaha siyaasadda toddobaadkan barnaamijkeena dabcan waxaynu ugu martiya Kaltuun Sheekh Xasan oo kamid ah komishineerada ama guddiga doorashooyinka qaranka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waa xubinta kaliya ee dumar ee ku jirta guddiga doorashooyinka Soomaaliland Marwo Kaltuun barnaamijka ku soo dhawow anagoo kaaga mahad celinayna ugu horeynba waqtiga qaaliga aad noo soo hortay adigoo shaqadii qaranka ku guda jira aad baad u mahadsan tahay dabcan dad badan oo kamid ah bulshada Soomaaliland way ku yaqaanaan Kaltuun Sheekh Xasan bal hadaba inta kale ka badan ee aan ku garanaynin ee dunida daafaheega ka daawanaysa ee kala socota barnaamijkan hadiiba aad isbarto Marwo Kaltuun Sheekh Xasan waa tuma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمعو adiga iyo tiimkaagaba waan idin mahadnaqayaa aadna waan ugu faraxsanahay runtii barnaamijkan inaan ka qayb qaato su'aal baad weydiisay balada dadka isku sheeg adigoo soo koobay yani yaa tahay ama maxaa tahay doorta magacayga wadiga sheegay waa Kaltuun Sheekh Xasan haddaan soo bilaabo tusaale ahaan kala waxbarashadeedii halkan ka bilaabay shaqadeedii oo kale ilaa iyo hadda waxa weeyaan horta waxyaabaha ugu horeeya qofku lagu soo barbaariyo waxa kamid ah malcaamad quraanta kulli laga soo bilaabi jiray annaga waqtigeeyii malcaamadii ugu horeeyay galay daruuraha ay ku taalay xafada daruuraha iskuulka biyo dhacayga hoose ayaan ka galay dugsigeeyii hoose ilaa kii dhexe dugsiga biyo dhacay anigoo markaa bilaabay haddaan sanadka idhaahdo 1980 ardaydii markaa la qoray iskuulka biyo dhacayga hoose da sidaas bay u sii socotay haba ka qaban biyo dhacayga hoose kii dhexe markii dambe ee secondary-ga aan galay runtii waxaan ahay ardaydii markaa aan dhamaysanay waqtiga aan u suura gelin dagaalka ka dhacay form 1kii markaan galay dagaalku dhacay dawaa la qaxay oo kulli anigu waxaan ahaa dadkii markii xamar u qaxay ka sii watay markaa halka waxbarashadoodii haddana dagaalkii markii dambe muqdisho lafteeda ka dhacay muddo ka bacdi Hargeysa xora aan markii dambe haddana soo galay runtii wadanka weyn oogayno markaa jaamacada may jirin laakiin fursadihii ugu horeeyay ama jaamacadihii ugu horeeyay haddana wadanka laga bilaabay kulli ma andeynina waan ka qayb qaatay digriigayga ugu horeeyay markaa waxaan ahaa global studies-ka iyo international relations-ka anigoo haddana raaciyay markii dambe masterkaygii oo ahaa isaguna international cooperation iyo humanitarian-ka labada isugu jiray runtii labada markii aan soo dhamaystay waxa inta haddana aan dhex weliday shaqooyinkii aan markaa ku jiray shaqadii ugu horeysay aan bilaabay haddana khaldanan malaa waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay ee bilaaba shaqada rugta ganacsiga ee Somaliland Chamber of Commerce waxa xogaya markaa guud ahaan jiray waxaan filayaa sida la sheegay inuu dhintay Axmed Maxamed Raagan in la oran jiray berbera xafiis baa ka jiray markaa laakiin Hargeysa markay timaado xafiiskii ugu horeeyay la furay ayuu ahaa
kaasoo aan muddo badan runtii ka soo shaqayn jiray markii dambe xogayaha guud haddana cabdulaahi diiriyaan noo ahaa runtii markaan runta ganacsiga waxoogaa ka soo shaqeeyey haddana waxaa ii suuro gashay markii dambe inaan u wareego dhinacii kale ee iyaduna ururada civil society-ga annagoo markaa sameynay urur la yidhaahdo waabo oo ka shaqeeya xuquuqal insaanka iyo dhinaca nabadgelyada iyo wacyigelinta waxaan haddana ururo badan oo isku jira ayaan haddana la soo shaqeeyey waxaa ka mid ahaa ururka CCBR oo kale waxaa ka mid ahayd nagaad waxaa ka mid ahaa markii dambe waxaan iyadana aan noqday focal point-ka ururo la odhan jiray G16 oo Puntland iyo Somaliland iyo Soomaaliya isugu jiray taasoo markaa aan la ii doortay markii dambe inaan noqdo focal point isku xidhaya saddexdaa wadan ama saddexdaa ururada ka shaqeynayay iyadana halkaa muddo runtii aan kula soo shaqeynayay waxaa markii dambe haddana iyadana aan noqday focal point ka dhexeeya wadamada Suudaan oo kale South Sudan Eritrea Djibouti Uganda ay isugu jiraan iyo Somaliland halkaasoo iyadana markii dambe ay noqotay inaan markaa ku guuleysto ama jaaniska imtixaan u galo oo aan noqdo focal point-ka wadamada isku xidha ururada ka shaqeynaya ururadaasoo markaa inta badan ka shaqeynayay iyaguna dhinaca wacyigelinta xuquuqal insaanka horumarka ama developmentka deegaanka yani wax fara badan oo isku jira ay runtii ka shaqeynayeen markii dambe haddana waxay noqotay inaan noqdo gudoomiyaha dalada nagaad iyadoo ka horba aan ahaa shaqaalaha ka shaqeeya ama project managerska aan ka mid ahaa markii dambe waxay suuro galay markaa ururadii nagaad inay ii doortaan gudoomiyaha isku xidhka dalada nagaad gudoomiyaha isku xidhka dalada nagaad muddo badan baan ahaa iyadoo haddana ay ii berber socotay inaan agaasimo guud ka ahaa ururkii waabo oo isaguna runtii in badan ka shaqeeyay dalka Somaliland hadday tahay gobolka Maroodijeex iyo Togdheer u badnaa oo ka shaqeeya hawlaha horumarka iyo ka shaqeeya dhinaca dumarka u badnaa runtii oo noo suuro geliyay markaa inaanu bulsho badan aanu samayno oo isku xidhno oo community fara badan isku xidhno oo imika ay ku dhow yihiinba meelaha 20 kun ay gaarayaan dadkii markaanu la shaqeynaynay sidiina isugu xidhan oo imika Hargeysa kala dad timaado si dhibiyana kuugu geyn kareen yani dadkii aanu la shaqeynaynay oo bulsho badan oo haddii cuqaasho tahay iyo haddii dumarka tahay haddii dhalinyarada tahay intaba aan runtii wada shaqeynaynay iyadoo mar walba dhinaca wacyigelinta haddii nabadgelyada tahay iyo haddii dumarka furuqaadistooda waxbarashadooda iyo dhinaca kale horumarka kale ay tahay intaba aan ka soo shaqeynay waxa kale iyadana aan la shaqeeyay wasaaradda qorsheynta qaranka anigoo markaa ku jiray khubradii markaa sameysay qorshii qaranka ugu horreeyay Somaliland national development plan-ka waxaan ahaa dadkii markaa sameeyay baan ka mid ahaa dad soo qaada markaa buugga waad ku arkaysaa magacayga iyo waxyaabihii qaybtaan ka qayb qaatay oo sectoriskiisa markaanu u dhanayno group dhan aanu hayno runtii ka soo shaqeeyay waana dad qorshaha qaranka imika lagu guuleystay runtii imikana qaybtiisii labaad maalintii dhaweyd la daahfurayay intaas waxa ii dheer markaa haddana waxa ii suuro galay in aan qoladaas sixa network la yiraahdo aan ka soo sheekeynay ee wadamada Horn of Africa aan focal point-ka u ahaa mar labaadkii haddana Uganda la isugu yimaado haddana wadamadii ay ii soo jeediyeen inaan noqdo markaa gudoomiyaha ka dhaxaynaya qoleenka Horn of Africa ka shaqeeya runtii markii dambe gudoomiyaha saasa la igu dartay saasa gudoomiye u saaha intii ka dambeysay markaa haddii aan soo koobo waan soo koobi waxaan jeclaan soo koobo shaqada imika aan hayo oo ah komishinka doorashooyinka qaranka aad baad mahadsan tahay in badan iyo sanado badan runtii waad soo shaqaysay arrimaha bulshada imikana waxa weeyaan kaalin aad u laxad badan baad ayaad runtii ku leedahay ama qaybtaad uga jirto bulshada imika waxaad ka mid tahay guddiga doorashooyinka qaranka Somaliland maadiga doortay xubinnimadaasi mise waa lagu soo xulay dumar ahaan baad ku timid kulley sidaynu ka wada warqabno waxa weeyaan xubnuhu meelo kala duwan bay ka yimaadeen xubno waxaa jira xisbiyada ka yimaadeen oo sida wadaniyo kale ucidoo kale guurtidoo kale laba xubnood baa ka yimid saddex xubnood baa jira isagu madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu soo magacaabo anu kulley waxaan ka mid ahaa oo aan nasiib u helay saddexdaa xubnood ee madaxweynuhu isagu uu gartay inuu u magacaabo inay ka mid noqdaan guddiga doorashooyinka qaranka
marka waxaan ku imiduun rabitaan ka yimid xagga madaxweynaha inuu isagu igu soo daro marka isagu baa gartay kulley inaan ku haboonahay positionka guddiga doorashooyinka qaranka aadna ugu mahadsan yahay waan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha sasan ku imid aniga laftarkayga u mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mar hadduu xubin dumar oo waliba firfircoon in badan soo shaqaysay uu ku soo daray way Marwo Kaltuun waxaad sheegtay inaad in badan soo shaqaynaysa shaqooyin kala duwan baad soo qabatay maanta xubin baad ka tahay sidaynu sheegnay guddiga doorashooyinka bal haddii aad isbarbar dhigto shaqooyinkii hore miisaankooda iyo tan imika aad hayso waa maxay faraqa u dhaxeeya wallahi farq aad u weyn aad u ballaaran ayaa u dhaxeeya shaqadii hore dukaley waxa la taargedeynayay cid gaar ah ayaa taarget ku ahaayo aad la kulmaysayo aad ku sheegaysayo siyaabo kala duwan oo gaar ah la kulmayo marka qaar decision-keeda anigoo kaliya aan lahaa laakiin tan way ka duwan tahay waxa weeye wax qarankii oo dhan Soomaaliland oo dhan baaxideeda leedahay culeyskeeda leedahay warwarkeeda leedahay dadaalkeeda leedahay waxa weeyaan maaha oo kaliya uun xafiis yar oo kaliya loo shaqo tagayo laakiin waxa weeyaan masiirkii dalkan Soomaaliland oo dhan ayay ku xidhan tahay qaabka anagu aan u shaqaynayna marka waa arrin culays badan waa hawl culays badan waa hawl horumarkii Soomaaliland maadaama oo doorashooyinka dabada ku hayso waxaan ka shaqaynaa waxa weeyaan waa doorasho ama diiwaangelinta ha noqoto diiwaangelinta waxa ujeedadeedu ay tahay in doorasho xor iyo xalaal lagu gaaro marka hawshan ayaa intay doonto ka culus oo ka baaxad badan oo ka caqabad badan oo haddana ka mustaqbal dee wanaagsan oo hadhow marka aad ku guulaysato waxay noqonaysaa dee wax taariikhda ku galo oo aad ku gaari karayso meel sare ay noqonaysaa shaqadan laga shaqaynayo doorashada iyo sidee u qabsoomi lahayd waa hawl aad u culus sida aad sheegtay mas'uuliyad badanna u baahan eedeeda leh xubinnimadaada ka dumar ahaan sideed u aragtaa adigu maadaama toddobada kaleba lixda kaleba yihiin rag wallaahi waxaan u arkaa aniga horta wax dhibaato uma arko dumarnimadeeda waayo wax caqabado anigu dee shakhsiyan aan aaminsanahay inay dumarnimo aawadeeda iga reebayso runtii ma jirto waxaan u arkaa inaan kaalmaha ugu firfircoon aan kaga jiro hadday tala tahay hadday shaqo tahay hadday go'aamo tahay hadday dee firfircooni iyo ka hawlgalay tahay waxaan u arkaa in kulley inaan xubnaha hore ee ugu firfircoon aan kaga jiro dumarnimaduna maaha dumar baa tahay waxaas hoos ku dhigaya maaha qof waliba waxa weeye inaan awoodda uu la yimaado iyo shaqada uu la yimaado iyo maskaxda iyo inta uu juhdi geliyo ayuun bay leegaanaysaa ama rag ahaw ama dumar ahaw waxa weeye kartidaas halka ay ku gaarsiisay in bad mar walba gaaraysa marka taasi maaha wax dumarnimo kaaga reebaya ama caqabad kugu noqonaya iyadoo ay iska jirto oo dhaqan ahaan ay jiraan haddana haddii aad istiraahdo waxaas caqabad bay kugu tahay wallahi wata lagu soo eegaya ama sidaa uga hadh waa lagula yaabaya kamidaha oo dhan yani way ku reebayaan laakiin marka lagu arko inaad wax wanaagsan mar walba ka talinayso oo dee adigu waa dad badan kaga horeysa waxay noqonaysaa marka in lagu soo dhaweeyo lagu arko dee qof ku qalmo positionkan markaa dumarnimadu in ay horumar samayso mooyaane marnaba anigu ma aaminsani inay hoos kuu dhigayso waayahay intii shaqadan aad ku guda jirtay ma jirtaa caqabad aad u xoog badan ama culays leh oo ku soo food saartay walow shaqada dee culayskeedii iyo hawlihii doorashadu ay weli hadhsantoo processkaad ku jirtaan caqabad kugu adkaatay oo kaa hortimid weli ma jirtaa wallahi caqabaddu waxa weeyaan dee toddobada xubnada commissionka caqabad marka la yidhaahdo qof keliya kuma noqoto hadday guul tahayna waa la wada leeyahay hadday caqabad noqotana waa waxna wada haystay noqonaysa sababtoo ah qalinkaa haddii ay noqoto wax laga wada tashaday noqota haddii markaa wax caqabada oo naga hor yimaadaan aragnana waxbaanu iska weydiinaa waanu ka wada tashanaa caqabado way jiraan oo waxa weeyaan bulshada intaa leeg ee Soomaaliland ayaan doonaynaa inaanu doorasho u qaban doorashadana waxaad moodaa inaanay dadku sida loogu talagalay badankeeda aanay u aqooninba ama aqoon badan aanay u lahayn oo kale waxyaabo badan ay naga maqan horta in dadka la baro doorashada maxaynu ugu baahannahay iyo maxaynu u qabanaynaa iyo maxay inoo taraysaa waxyaabo badan oo kale yahay dadka in la baro ayaa marka horeba maqan iyadoo ay taasi maqan tahay marka caqabad bay kugu noqonaysaa waxyaabaha ugu yar baan soo qaadanaya wax qabiil la yidhaahdo horta inuu wareeriyo qabiilkaasi meel buu jiraa imika diiwaangelintii baan ku jirnaa codbixiyayaasha diiwaangelintaa waxaanu la shaqaynaa dad fara badan oo kala duwan tusaale ahaan jaamacadahaanu la shaqaynaa waxaanu ka qaadanaa ardayda shaqaalaha baanu ka qaadanaa waanu soo koobnay maadaama jaamacadihii ay fara badan yihiin waxaanu qaadanay jaamacadaha public ah haddii markaa ay noo suuro gelin weyday inay noo buuxiyaan ardaydaas dee jaamacadda labaad ee markaa gobolkaa ka jirta ayaanu qaadanaynaa inta badanna dee jaamacadaha publica waynu ognahay oo 6 caasimadood way ka wada jiraan ama dee waa mid ama
gobolada qaar laba laga heli karaa laakiin inta badan waa mid weeyaan taasoo kale annaga markaa waxay noo fududaysay sababta aan u qaadanay ardaydina waxay leeyihiin tixraac bay leeyihiin meel loogu hagaago ama liiskoodii intaasoo arday kun arday meel aad mar keliya si sahlan uga helaysa waa jaamacadaha tixraac bay leeyihiin macallimiintoodii baa jooga gudoomiyihii jaamacadda jooga waxa ardaygaas haddii wax xumeeyo iyagaa damiinka ah iyagaa si dhib yar markaa u soo qabanaya imtixaankiisa iyo digrigiisii buu qofkii ka fikiraya marka maaha qof si caqabad intuu ayron iska samayn kara ma noqonayo ardaygaas iyo isaguba waa qof mustaqbalkiisii doonaya inuu wanaajiyo markaa sababta aan u qaadin waxa weeye ardaygaas horta inuu tixraac annaga noo yeesho shaqadana uu si fiican noogu qabto dee dad aanu xidhiir fiican wada yeelano oo markaa si dhib yar aan u soo heli karan inay noo noqdaan taas markaa dad badan baan sidaa u arkay waxaa laga yaabaa gobollada qaar markaanu tagno ama jaamacadaha qaarba dad waaweyn oo mas-uuliyiin ah ku imanaya dabeetana waxa lagu odhanaya inagu jaamacad iblaayo reerka iyaga kuma jiro maadaama aana reerka iyaga ku jiro waxaanu doonaynaa 300 oo arday 300 qof 200 inamood in lagu daro suuragal lama noqonayso jaamacadda may dhigtaan maya annagu ID-gaan isticmaalno ID-ga jaamacadda iyo ardaygaasaan isticmaalayno ID qabiil ma isticmaalayno marka ciddii doonta dad jaamacaddan ku jiri karta teeda labaad anagu ma odhanay intaasoo reehibana noo soo xolo intaasoo reehibana noo soo waxaas anaga shaqadeeda ma waxa weeyaan ardaygaas aqoon ma leeyahay shaqadan ma ka baxaya waxyaabaha ay dadku u sameynayaan waxa weeyaan aaminaad dar wixii baan aaminsanayn garasho la'aan baa jirta kaarkan maxaa lagu falaya kaarkan waa lagu codeynaya inankan iskama kaasiin karaa ama inantan goobta ka shaqaynaysa kaadhaka iskama kaasiin karo hadday si qaldan bixiyaan dee sharci baa yaalla sharciga ka horna waxaaba la sameeyaaba ardayda waad aragteena waa la dhaariyaa tababar baa la siiyaa waa la dhaariyaa waxaa la isku dhaarinaya wax weyn qofkan in la aamino marka dhaartan haddii aan qofkii lagu aaminaynin dee qabiil miyaad ku aaminaysaa waa maya qabiil ma jirayo marka waxaad moodaa dadkii inuu wax walba ay horumarkii uu noqdayba iminka waxa qabiilka la idhaahdo taana aan ka dardaarayo kulley dadkoon leeyahay inta qabiil dee lagu fikirayo waxa wanaagsan in laga fikiro ardaygan iyo horumarintiisa iyo qofka inaad marka horeba ka fikirto inaad waxbarasho heer sare la heer jaamacadeed aad gaarsiiso intaas hadhow qabiil leedahay wax ku doona qabiilkan mar baa la dhaafi doonaa kolley waqti la dhaafi doonaa way jiri doontaa waan filayaa insha allah laga yaaba inta aniga iyo qoladii la day aani soo gaarin xilligaa laakiin haddana waa wax la gaari doono marxan marka inta lagu fikirayo un qabiilka wax wanaagsan in laga hormaro oo dhinaca waxbarashada loo guuro oo dhaartan qofka la dhaarinayo lagu aamino qofkan haddii aan la aaminin dhaartan lagu aaminin maxaa loo dhaarinaya marka hore in la isweydiiyo dhaartaasina runtii in badan way badbaadisay oo wayna badbaadisay oo waxay nagu badbaadisay yani ardaygii wuu islaalinaya kaarkan inuu qofkii lahaa uu siiyo ayuu ku dadaalaya waxa laga yaabaa boqolkiiba hal inuu bayro kaasna sharciga hay'adku waa maqasheen meelaha qaarna xidhnay dadka qaar marka taana dee sharci baa ka yaalo oo la waafajinayaa oo sideedii loo marinaya marka dadka waxa leeyahay hal aamino ardayda hal aamino waa arday dhaarsan waa arday doonaysa in iyagu mustaqbalkooda wax madmadow aanay gelin marwa kaltoon commissionku tani maalintii la doortay waxay ku jiraan un shaqay ku jiraan iminka waxaynu ku guda jirnaa qaadashadii kaarhkoo shaqadaas ayaad ku howlantihiin dhowr gobol way soo dhammaadeen 2 gobol baa idinka idin harsan hawsha kaarh qaadashadu sidee u socotaa midda labaad ee kale dadku waxay leeyihiin kaararkii aad looma qaadanayo oo dadkii waanay tegaynin goobihii kaarh qaadashada taasi maxaad kaga jawaabaya kaarh qaybintu runtii way socotaa ilaa hadda waxaa imika soo dhammaaday 4 gobol ugu horreeyey awdal iyo saaxil togdheer iyo marooda jeex oo 3 bishii soo gabagaboobay 2 gobol ugu dambeeyey qaadashada kaararka wayna ogeen markii hore la isdiiwaan gelinayo gobollo fara badan dee abaartii baa ka jirtay oo runtii meelaha qaar dad badan iskama diiwaan gelin laakiin haddana tirada soo baxday ma yeereen marka loo eego abaarihii dhacayay ma yeereen oo dad fiican bay isdiiwaan geliyay dee tiradii waa nagii wax 900 ku dhow baan soo saarnay oo 900 oo kun ku dhow ilaa iyo hadda 2 gobol ee ugu horreeyay qaatay awdal iyo saaxil ugu yaraan 70% baa qaatay way ka sii badan tahay ilaa 70% way gaadheen inta qaadatay marka dee lama odhan karo lama qaado yani si fiican baa loo qaatay markay intaa marayso 70% gobollada qaar gaadheen waxa weeyaan wayna jecleen 100% buuxsamaan laakiin waxaanay u suuro gelin dad badan oo sidaan sheegay abaarihii ka soo kaban waaya ama iman waaye in dhibantay baa jirta in dhooftay baa jirta
inaan iyadu wadan kala hayn baa jirto oo aan qaadanaynin laakiin inta badan dadku way qaateen waana ku dadaaleen imika Hargeysa kale in ogeyno aad imika arkayseen aduu Hargeysa joogteen gobolada kale anaga ka warhayna marka waxa weeyaan dadku si fiican bay u qaateen runtii way sabaabulayeen iyaga dhexdooda xitay sabaabulayeen guriyaha isku garaacay soo baxa laha wacyigelintu aad bay u badnayd komishanka doorashooyinkuna wacyigelinta uma yareysan ilaa xitaa waxaan gaarnay heer qofka telefoon aan kula hadalo la yiraahdo hebel kaarkaaga goobtaas ku yaala soo doono inta qof ayaan telefoon ku tagtay baa ka badan inta markii hore idaacadaha ka dhageysatay ama raadiyaha ka dhageysatay ama TV-da ka daawatay ama mikrofoonba ku maqashay waxa ka badan inta qof telefoonka lagula hadlayo soo doontay marka runtii lama oran karo dadku ma qaadan way qaateen dadka kaarkooda aad baa loo qaatay ugu yaraan 100 waa halka ugu yar baan soo qaadanay ugu yaraan 170 marka la qaato waxa weeyaan number fiican baa qaatay duruufo badan oo abaarana ay jireen runtii dadku aad iyo aad baan uga mahadcelinayna yani sidii iyaguna soo abaabuleen kaarkooda oo qaateen hadda waxa la geliyaa labadii gobol ugu dambeeyay Sooliyo Sanaag waxay bilaabmaysaa hadii ilaahay ka dhigo hadda aan baxaynaaba oo aan safar galeynaa maanta waxa ka bilaabmi doona iyada marka 12 bisha August ay ka bilaabayaan Sooliyo Sanaag qaadashada kaarka cod bixinta marka iyadana inay dadku soo ugu diyaar garoobaan oo labada gobol cidii iska diiwaan gelisay gobolada kale hadda jooga inay ku tala galaan oo daaysi tagaan oo waqtiga ay ka faa'iideystaan oo ay qaataan waxa kale iyadana inta barbar socdo diyaar garowgii doorashada ayma doorashadii baa lagu jiraa waqtigii doorashada baa la iskaga jiraa marka la leeyahay waxa lagu jiraa wax weyn diyaar garowgeedii oo anagu aan ku jirno kamishka doorashooyinka qaranka ay ka jiraan oo qalabkeeda aanu dalbanay hadday tahay ballot papersi hadday tahay khadkii qofka farta loo gelinayay tusaale imika kala shalay baan loo keenay qalabkii ugu horeeyay tijaabada ahaa waxaanu tijaabinaynaa marka khadkan inuu qofka u fiican yahay kala kaas farteeda wali ku sii yaala darkaysan oo waanu tijaabinaynaa marka imika markaanu de aragno wixii inuu tayadiisa fiican yahay baan hadana dib u dalbanaynaa oo leenahay waxa si wanaagsan waxaana wax ka bedela marka taasina diyaar garowgii doorashada waynu ku jirnaa waana wadnaa waraaqaha qadaynta waanu dalbanay imaatinkoodii baan sugaynaa in la soo qaado imika waxa weeyaan diiwaan gelinta labada gobol markay soo dhamaadaan waxa loo baahan yahay iyadana su'aashaadii ku jirtay dadku inay iska sii qaadan karaan kaararka dadku kaararka waxaan u sii qaadan karin waqti baa loo baahan yahay waqtiga loo baahan yahay liiska inuu soo gabagabooba la doonayaa goobaha hadhowto waxa la dhigi doonaa tiradii ka qaadatay kaarka liiskooda ayaa la dhigayaa doorashada marka iskama noqonayso inay iska furnaato oo la sii wado waxa waxaan la soo gabagabeeyaa loo baahan gobol walba markuu dhamaado la soo xiro goob walba loogu talagalo imse qof baa hadhowta ka codeyn doona la sii diyaariyo daabacadooda iyo buugooda haddii 500 qof tahay goobtaas 700 qof tahay inta loogu talagalayba waa in liiskii marka la dhigaa inta hadhowta ka codeyn doonta marka sidaasaan suuragal ahayn in ay iska furnaato kaar qaadashada iska furnaato oo waxa loo baahan yahay final liiskii baa loo baahan yahay xisbiyada tartamaya laftooda ee saddexda ah waxay ku talagelayaan liiska dadka qaatay kaarka si ay u ogaadaan inta hadhowta de codeynaysa dadka ka codeynaysa marka anaga waxa waajib nagu ah inaanu bixino liiska kama dambaysta ah ee cod bixiyayaasha ay tahay inaanu siino xisbiyada iyo qaranka baan u soo gudbino waayahay marwa kartoon sheekh xasan dhamaantiin ama intiina badan ee maxalada xubnaha ah ee guddiga doorashooyinka badanaa hore umaydaan soo noqonin komishineero oo hore umaydaan soo shaqaynin hawshan laga yaabo inay mid ama laba idinku jiraanba komishineeradii hore ama soo maray dalka hawsha idin hortaa loo ah hawl aad u culays badan ammaanadeeda leh muwaadin kasta oo reer Somaliland wuxuu idinku aaminay maseer iyo cod buu idinku aaminayaa oo runtii idin dhiibay maxay idinka lilaahiya marka doorashada la gaaro maxaa la dhahaa dad idinka fili karaa qof kasta oo reer Somaliland codeeyay waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan waxa weeyaan maxay idinka lilaahiya waxa weeyaan qofka horta aaminaada number 1 ma lagu aaminsan mise lagu aaminsana waxa ugu horeeya la iska aaminaa qofna qalbigiisa lagu ma jiro laakiin waxaad arkaysaa dadku sida u shaqaynayaan nidaamka loo shaqaynayo xisbiyada waan wada shaqaynaa dawladda waan wada shaqaynaa waxaan ka wada shaqaynaa xubno kooban oo mar walba aanu la wadaagno wixii aanu qabanayno xubno gaar ah xisbiyadu iska soo doortaan oo nala shaqeeya anaga saddexdaan u garnaqaynaana waa iyaga marka waa inay nagu kalsoon yihiin si ay nagu kalsoonaadaana waxaan tusnaa marka mar kasta shaqada aanu qabanayno qaabka aan u wadno halka aan u soconno yani talooyin badan ayaanu iyaga la wadaagnaa si marka iyagu ay noo aaminaan oo aan kalsoonidooda u dhisno ka labaad de Somaliland dhan iyo cid kasta marxaati bay ka hayd qof walba kitaab gacanta loo saaray inuu daacad ka noqonayo saddexda xisbi daacad noqonayo tartankooda daacad ka noqonayo
marka dee aaminaadii waxa weeyaan in lagu aamino waxaabay tahayba maadaama oo lagu dhaarinayo wax lagu dhaarinaya dee in lagu aamino marka taasi waa number 1 ta kalena waa wada shaqaynta iyo xidhiidhka aanu leenahay xisbiyada iyo cid kasta oo kale aan wada shaqayn leenahayna kalsoonidooda annagu waxaan is leenahay intii awoodayada waa dhistaan waxaan ku dhistaana dee la wadaagida aanu la wadaagayno wax kasta aan qabanayno aan tusayno saanu soconno taasina waxay keenaysaa markaa deena la aamino bulshada lafteedana dee waxaan ka dalbanayaa inay nala shaqeeyaan iyaguna oo taageerana siiyaan oo dee waxay farkali fool ma dhaqda baa leeyahay hadaan la wada shaqeynin komishanka doorashooyinka qaranku dee mas'uuliyad bay hayaan iyagu waa run laakiin mas'uuliyad kasta oo haysa hadaan lagu taageerin waxba ka maqnaanaya marka taana waxa la cid kastaba waan ka dalbanayaa in iyaguna taageero buuxa ay nagu siiyaan waana nagu dhagan nagu leecid kasta oo tala soo jeedinaysa inaan wixii sax ah ee horumar anagana na gaarsiin kara doorasho xor xalaal lagu gaari karana cid kasta ka dhiiban kartana iyadana diyaar baan u nahay dalka waxa ka dhacay abaaro baahsan oo saameyn ballaaran ku yeeshay noloshii dhaqan-dhaqaale miyiga iyo magaaladaba idinka abaartaasi saameyn noocee bay idinku yeelatay maadaama aad ku guda jirtaan hawlihii doorashada abaarta saameyn badan bay nagu yeelatay saameynta ay nagu yeelatay waxa weeyaan waqtigan aynu ku jirno hadda ugumaanaan talagin kaar qaybinayno inta ku jirno waxaan ugu talagalay diyaargarowgii doorashada laakiin muddo 4 bilood ah waxaan naga lumiyay waqtiga abaaraha oo aan dib ugu dhignay mar walba isdiiwaangelintii hore markaan dib u dhignay waxaan lagu keentay markaa kaar qaybintii inay dib nooga dhacdo oo ilaa iyo imika aan soo gaadhin waxa kale iyaduna ay nagu keentay in dadkii isdiiwaangelin lahaa meelaha qaar aan ka weyno oo goobaha qaar dadkii isdiiwaangelin lahaa dee wadamada kale aan jaarka nahay ay tegeen oo ay u doonteen dee xoolahay kaxeeyeen wixii u haray marka taas iyaduna waxay nagu keentay inaan weyno dadkii aan diiwaangelin lahayn marka labada caqabadooda ugu badan waa dib u dhac aan nagu yimid iyo dee dadkii kaarka qaadan lahaa codbixiyaasha noqon lahaa oo meelaha qaar aan iska diiwaangelinin labadaas runtii way nagu keentay waa yahay gabagabadii marwa kaltuun waxaa tahay hooyo qoys caruur iyo aabba iyo ka kooban runtii dee mas-uuliyaddeeda leh mas-uuliyadda dumarka maxaa la dhahdaa waa xubiyaan tiir dhexaadka nolosha qoysa ma qaran leeyahay hawshan kalead ku jirtee maxaa la dhahdaa aad xubinta ka tahay ee guddiga doorashooyinka idna dee waa hawl aynu garanayno runtii culayskeeda iyo dee wakhtiga badan aad ku bixinayso labada hawlood oo aad u culus maadaama aad hooyo tahay sideed labadaba wada qaaday ama aad u xambaartay ama aad isugu wadaa nimco waa runtaa waxa weeyaan su-aal u baahan in la isweydiiyo yacni waa laba hawlood oo labadu waa waaweyn waa run hooyaan ahay caruur baan haystaa yaryar haddana waxa weeyaan kale waxaan isleeyahay awood baan u leeyahay inaan labadaba isku maamuli karo hooyanimadu waxaad arkaysaa dadka qaar ba waxay haystaan maadaama hooyada ay shaqaysaa ama ay guriga ka soo baxday in caruurtii ay baaba'day in akhlaaq xumo ay soo gaadhay waxyaabahaasi dadku u arka taas anigu waxaan arkay oo aaminsanahay hooyooyin fara badan oo guryaha fadhiya oo waxaad arkaysaa yani caruurtooda laga fadhiilaaya akhlaaq xumo laga fadhiilaaya akhlaaqada ubadku waxa weeyaan qofka hooyadiis iyo aabuhu siday caruurta u koriyaan bay noqonaysaa maaha hooya fadhiday hooya dibadda u soo baxday waxa weeyaan qofkan hooyada ahi marka hore akhlaaqada ay leedahay iyo aabahan akhlaaqada uu leeyahay ayuunbuu ubadkiisana ku korinayaa haddii uu ka maqan yahay iyo haddii uu la joogaba taasi marka aniga yani wax ay ii tarto mooyaane waxa ay yeeshay ma jirto maasha allah dee carruurteediina iskuullada iigu wada jiraan qof maanta aan ka walaacsanahay aan isleeyahay shaqada aad u baxday walaahi dib u dhac buu ku keenayna runtii ma jirto waanay ku soo barbaareen oo way la wada shaqeeyaan intooduba iyaga laftoodaaba talooyin badan iyo ama ha yaraadaan ama kuwa dhexe ha ahaadaan intube soo jeediya mararka qaar oo la qabsaday oo ilaalinaya oo alaabtii xafidaya oo bugaagtii xafid yani mas-uuliyadda aan hayo way ila dareensan yihiin xitaa imika dee doorashada lafteeda kaa qaybinta lafteeda waxaad moodaaba in iyaga laftooduba khabiir ku noqdeen oo mararka qaar yani su-aalaha ama ay weydiinayaan ama taageerada iyaga aan ka helayaaba runtii aad iyo aad u badanta markaan waxaan aaminsanahay hooyada iyo aabbuhu sida ay ubadkooda markasta ay gacanta u wada qabtaan inay noqonayso mas-uuliyaddan kale ee dee ama doorashooyin ha noqoto ama shaqooyinkii ka horreeyaan soo qabanayay ha noqdaan iyaduna waa mas-uuliyad aniga dee saaran oo ay u baahan tahay iyaduna in waxaa la iga doonayo iyo mas-uuliyadda ay saaran aan sideeda u qabto marka kolleyba alxamdulilah dee ilaahay baan ugu mahadnaqayaa waxaan isleeyahay awoodda ilaahay baa ku siiyaad labadaba ku maamuli karayso maasha allah barnaamijkeena wax weeyaan daqiiqadihii ugu dambeeyeen marayna maxaan bulshada kaa somalilan ee ku daawanaysa maxaanu kaa gaadhsiinaa ee fariinaad u diri lahayd wallaahi bulshada horta waa bulsho aad iyo aad u wanaagsan
bulshada horta iyada waan salaamaya aadna waan uga mahadcelinaya waayo waa bulsho wanaagga jecel mar walba waxaan ku dardaarayaa dee shaqada imika horta annagoo aan hayno ayaan ku dardaaraya oo ah bal labadaa gobol ee hadhayna kaarhka inay qaataan codaynta hadhowtana in somalilan oo dhan looga diyaargaroobo doorasho wanaagsan oo xora xalaala inay dadku galaan isu abaabulaan bilaa buuqa bilaa rabisha bilaa dagaala yacni wacyigelin badan bulshada dhexdeeda ay isku sameeyaan waayo waxaynu de u samaynayna waxa weeyaan inaynu horumarna gaadhno madaxweyne wanaagsan oo dalkan mustaqbalkiisa hogaamin karana in la doorto marka inay si fiican u doortaan madaxweynaha aynu filayna insha Allah inaynu bisha 11aad waxba inagama xigaan oo diilahayna gaadhsiiyo la soo saaro marka bulshada waxaan leedahay u diyaar garoobo saad madaxweyne ku xigeen aad u dooran lahaydeen horumarina gaadhsiiya halka aynu taaganay maanta kasi amba qaado meel qurux badan baynu taaganahay deena sii gaarsiiyo horumarka kale caalamka iyo ixtiraafkeena gaarsiiyo in aynu helo ayuun insha Allah ku rajaynayaa dal ka dhigo ku dardaarayaan bulshada aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaligaadna siisay Marwo Kaltuun Sheekh Xasan daawadayaal Marwo Kaltuun kulay su'aalo badan oo aad isweydiinaysaan waxaan filayaa inay si aad iyo aad u qurux badan idinka jawaabtay idinkana qancisay runtii maadaama anagu idinka wakiilnahay laga yaabo waxyaabaha tabiisan is leedahay talo su'aasha ma la weydiiyo in alxamdulillah ay ka jawaabtay aad iyo aad anagoo ugu mahadcelinayna iyadoo safar u sii baxaysa oo shaqadii runtii ku guda jirta aad baan kugu mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaadba daawadayaal barnaamijkeena garwaaqso ee toddobaadkan intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa waxaan u mahadcelinayaa Maxamed Deeq Axmed Cali oo dhanka farsamada kamaradaha inaga caawinayay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sidoo kale daawadayaasha iyo dadka barnaamijka ku xidhanna aad baan ugu mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga ah ee ayna siiyaan kula socdaan barnaamijka daawadayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Sociedade nabada